بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما سنة قدومية حلوان هذا شرفت له جانس كان يوقلاده إن أنت نقول قليل برنامج كي أجنديه أنت نقول قليل كهر إن هالكان أنا كسو جديو يوقلاده وما سنتي ولا ليال حلوانه أنت كدي قدومية أرنت أن ربنا هالكان كجاه الله وحوي أرن رنتي baraha bulshada iyo saxaafadaba aad ugu badneed buryahan gabadhii maqneed ee sidaad ka wada qabtiin ikraan tahliil faarax iyo hadalladii deelqaafka badnaa ee aniga aanan ku qancin agaasimihii hore iyo agaasimihii ka dambeeyey iyo is-eed fara badan oo meeshii ka soo baxay ayaan laga gasan wayna xanuunkeeda haddii aan nahay xildhibaanada sida qaaska u matalo gabadha mudane gudoomiye kadib markaan aragnay baahida loo qabo in gabadha kiiskeeda si dhab leh loo baaro kadib markaan aragnay aan xuuraansanay in weli ayna dhicin inaan si cadaalad ah kiiska asaga aan loo gelin kadib markii is-eedayn fara badan ay ka soo baxday mas-uuliyiintii la rabay inay jiheeyaan muxuu ahay kiiskaas asaga ay ka gaabiyeen dhacdina inay iyaga ruuxooda isku eedeeyaan waxaan rabnaa inaan halkan ka soo jeedino annagoo ah xildhibaano Soomaaliyeed in kiiskii ikraan tahliil guddi baarlamaani ah oo muxuu ahay arrintaas isku soo dawrido oo cadaaladda horgeeyo oo kiiskaas qofkaas muwaadinada ay Soomaaliyeed muxuu ahay si dhab leh muxuu ahay meeshu galay iyo sida uu yahay iyo khilaafaadka dadkii lagu tuhmay ama dadkii la rabay inay jiheeyaan dhaxdooda ka jira dad soo aruuriyo baarlamaankana ka soo siiyo warbixin ka soo siiyo waad ogtiin waad dhageysateen waxa idaacadaha ka dhacayo waxa muxuu ahay isku eedeynta kiiska gabadha marka baarlamaanka waxa weey baarlamaankii shacabka Soomaaliyeed matalay gabadhaasna waxay ka mid tahay shacabka Soomaaliyeed ee aan matalayno sida daraadeed gudoomiye waxaan ka codsanayaa guddi khubaro ah oo baarlamaanka dhexdiisa laga magacaabo iyo guddi khubaro ah oo uu magacaabo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya asagana waan u tagaynaa waana ka codsanaynaa in labada guddi gabadha kiiskeeda loo magacaabo si arrintaas ayada loo turxaan bixiyo meesha uu leeyahay in la dhigo aad iyo aad u mahadsantahay gudoomiye xildhibaan aad iyo aad u mahadsantahay